السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميل بو جوجتان كسو دواada qodobada qaranjoog news wararkan aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku socoto hanaan qaldan oo sababi kara burbur kadib markii laga celiyay eelboorka magaalada Muqdisho oo safar uu ku lahaa magaalada Kismaayo. dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa walaac xooggan ka muujiyay xaaladda maanta ay ku sugan tahay Soomaaliya iyo habdhaqanka ay la soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya. xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Muuse Biixi ayaa is hortaagtay isla markaana tababar uu qaban lahaa sheekha caanka ah Maxamed Idris kaas oo qorshihiisu ahaa in lagu galo lacag dhan $10. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo waxay tibaaxayaan in uu dib u dhac ku yimid cali masaarkii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo xanibaadii hawada oo shaqaysay. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa la guddoonsiyay abaalmarinta sanadlaha hogaaminta suuban ee Congradia. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Finish ayaa ka hadlay xisadaha cirka isku sii shareeray ee ka dhax aloolsan madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed iyo dawladda Soomaaliya. madaxweynaha maamul goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Daani ayaa magacaabay agaasimaha cusub ee hay'adda nabadsugadii sirdoonka maamulkaasi kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa. qodobada caalamka wararkan waxa ugu waaweyn ugu yaraan 7 caruur oo arday ahayd ayaa ku geeriyootay 750 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu shalay ku soo dumay iskuul ku yaal magaalada Nairobi dalkaasi Kenya. qodobadaasi qodobo kale ayaa warkeenu ku daawan doontaan markaan u diyaar garooba warkeenu faahfaahsan. markale daawaday isku soo laabashaha boon hadii uu yahay markii ku goorisay channelkiga soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto gamlekan afarto si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya warkeenu uu soo gaaro. mahadsanid aan ku horeyno madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed oo shalay jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa arintaasi nasiib darro ku tilmaamay talaabadii shalay dawladda federaalka Soomaaliya ee ugu joojisay magaalada Kismaayo. Sheikh Shariif ayaa qorshihiisa ahaa inuu haatan Kismaayo ka qayb galo xafladda cali masaarka Axmed Madoobe oo bari halkaasi ka dhacaysay iyadoo dawladda Soomaaliya ay hore u sheegtay inaysan aqoonsanayn natiijo kasta ka soo baxdo doorashooyinkaasi Kismaayo ka dhacay. waxaana uu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed waxaan aaminsanahay in muwaadin kasta Soomaaliya uu xaq u leeyahay inuu u safro halka uu doono. waxaana nasiib darro in dawladda sharciga lagu soo doortay in ay ku kacdo wixii annaga shalay ugu dhacay oo kale ayuu yiri madaxweynihii hore dalka Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed. madaxweynihii hore ayaa ka warramay marxaladihii ay soo martay dawladnimada Soomaaliya isagoona xusay in dawladda aysan dawlad noqon karin haddii aysan ilaalin dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala. madaxweynihii hore hadalka sii wata ayaa waxa uu yiri waxaa la yaab leh in qof Mareykanka ka yimid oo leh 30 sano ayaan soo joogay markii dalka la iskugu hagaajiyay ee la yiri ku soo dhawaaw waa lagu doortay inuu qalad noocaan oo kala galo lana yimaado inuu maalin walba sharciga ku xadgudbo ka aqbali mayno inuu yiraahdo garoonka kama duuli kartid ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed. waxa uu xusay in dawladda Soomaaliya laga sugayay in 24 saac la soo dhaafay inay raagilin ka bixiso qaladaadkii ay isaga ka gashay balse nasiib darro ayuu yiri intaasi ma aysan dhicin. madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed ayaa dhinaca kale sharci darro ku tilmaamay xanibaadaha dhinaca duulimaadka ah ee dawladda saartay Kismaayo waxaana uu xusay in shacabka magaaladaasi ku dhaqan ay xaq u leeyihiin inay u dhoofaan halka ay doonayaan xitaa haddii dawladda uu madmadow kaga jiro doorashada ka dhacday Kismaayo. sax ma ahan in habkaani lagu xalliyo xisaab ma lahan inta jeer ay dawladda sharciga garab martay dawladda haddaysan sharciga ku dhaqmin dawlad ma noqon karto. sidaa la wada aan soconno dastuurka ma dhammaystirno hanaanka doorashooyinka meel ay u socdaan lama yaqaano amni ma jiro xaaladda dalka waan ka warhaynaa xaggee loo socdaa ayuu isweydiiyey Sheikh Shariif Sheikh Ahmed. waxaana uu dawladda ku eedeeyay inay shaqo ka dhigatay dagaalka siyaasiyiinta ka soo horjeedo ayna meel iska dhigtay waajibaadkii ka saarnaa adeegida bulshada Soomaaliyeed. madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo hadalka sii wata ayaa wuxuu yiri aniga waxaan ahay qofka ugu dhow mucaaradka ee lagu tuhmayo in dawladda uu u dhow yahay mararka qaar xitaa waxa la yiraahdaa heshiis ayuu kula jiraa balse waxaan idin cadeynayaa xaqiiqda inaysan sidaasi ahayn. waxaan ka mid ahay dadka leh dawladda 4 sano ha loo daayo balse maanta hadday marayso inaanan u dhoofi karin magaalo ku taalo dalka sidaasi annaga iyo ayaga doorasho uma wada geli karno haddii la gaaro ayuu yiri Shariif Sheikh Ahmed oo intaasi ku daray in wadada ay ku socoto madaxda dawladda Soomaaliya ay tahay mid qaldan horseedi karta in ay burburto dawladnimada isagoona ugu baaqay in ay dib iskugu laabtaan qaladaadkii ay galeen ay saxaan.
dhinaca kale waxaa dhankiisa shir jira qabtay madaxweynihii hore Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa walaa xoogan ka muujiyay xaaladda maanta ay ku sugan tahay Soomaaliya iyo habdhaqanka ay la soo baxeen madaxda federaalka Soomaaliya waxa uu cambaariyay falkii shalay dowladda Soomaaliya kula kacday Shariif Sheekh Axmed isagoo xusay inuu waxa gaaf sharci darro ah oo ku tilmaamay Shariif Sheekh Axmed inuu yahay qof mas'uul qaran soo qabtay naftiisana halis u soo galiyay dowladnimada Soomaaliya uusan mudneen in sidaas loo dhaqmo xasan sheekh maxamuud ayaa arintaasi ku tilmaamay nasiib darro waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ku nool Kismaayo la saarana qabateen isagoo xusay dowladda dhexe aysan waajibaadkeeda dastuuriga aysan ku jirin shacabkaasi in la dhibaateeyo xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ku eedeeyay inay haatanba ay baalmareen sharciga dalka anigoo soo jooga 30 sano oo burbur ahaa idinkana aad ka maqnaadeen ogaada waxaad haysaan wadadii lagu hongoobay ee lagu dumay ka jooga ayuu yiri xasan sheekh maxamuud oo la hadlay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya shacabka muqdisho ayuu ku sheegay inay nolosha ku adag tahay ayna kadib markii wadooyinkaasi lagu xiray isla markaana hadda ay wajahayaan xaalado adag oo aan macquul ahayn sababtaasna uu ku tilmaamay inay abuuri karto kacdoon dadweyne markaana Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland uu hogaamiyay madaxweyne Muuse Biixi ayaa is hortaagtay isla markaana joojisay tababar uu qaban lahaa sheekha caanka ah Maxamed Idris kaas oo qorshiisu ahaa in haatan lagu galo lacag gaarayso $10 jaamac Xaaji Axmed oo gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ayaa sheegay in tababarkaasi sheekhaasi uu qaban lahaa ay joojisay xukuumadda isagoo xusay in magaalada Hargeysa aanan mar laba laga furi karin tababar xukuumadda aanan ka warhaynin gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa xusay una arabka ku adkeeyay in ay marnaba aqbali karin in shakhsi jiritaanka Soomaaliland ka soo horjeedo uu haatan gudaha ku qabto tababaro ama kulan gudoomiyaha gobolka Maroodijeex oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yiri ma jirto wax muxaadaro ah oo aanan joojinin laakiin waxa loogu yeeray tababar ayaanu annaga joojinay tababaro aanan dawladda ogeyn in lagu furo magaalada ma haboono qofka doonayo inuu haatanba cid tababaro ugu furo waa inuu haatan soo maraa laamaha dawladda ay qusayso sheekha haduu uu siyaasad galo sheekhu waa sheekh waxaana haatan lagu yaqaanaa inuu haaba dadka u wacdiyo uu masaajidada ka jeediyo muxaadarooyinka laakiin haduu siyaasad galo oo dawladda aflagaadeeyo isaga naftiisa hadii uu siyaasad galo haddana siyaasadda ka soo horjeedo uu haatanba yimaado tababarana uu ka furayo midaasi lafteedii lama yeelayo oo intaas ku sii daray cid kasta oo qarannimada Soomaaliland oo ka soo horjeeda ama wax ka sheegta ma aqbalino in halkan tababaro ay ka furaan in ay kulmo ku qaataan qarannimada Soomaaliland kuma joogto ciyaar waad ogtihiin dalkani halgan dheer baa loo soo galay kumanaan dhalinyaro ah ayaa u dhintay kumanaan hooyooyin asaay ay u qaadeen hadii cidii aragtay Hargeysa oo qurux badan iyo Soomaaliland oo qurux badan fooqo dheer iyo wadooyin qurux badan ay ka dhisay yihiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada nimcadana siiyay laakiin halgan baa loo soo maray lamana aqbalayo nin kale qarnimada Soomaaliya waa muqaddas oo Soomaaliland ma ahan wax jirta markaana magaalada Kismaayo wararka ka soo baxayo ayaa sheegay in dib u dhac ku yimid caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe munaasabada caleemasaarkaasi Axmed Madoobe ayaa haatan lagu waday in 26 bishaan lagu qabto magaalada Kismaayo guddiga loo xil saaray qabanqaabadaasi xafladaasi ayaa la sheegay in dib u dhac ku yimaadeen xilliga xafladaasi ay dhacaysay inkastoo wali si rasmi ah aan loo shaacin dib u dhacaasi xafladaasi caleemasaarka ee Axmed Madoobe dib u dhacani ku yimid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay cadaadis xoogan ku saartay xayradaha dheeri ah oo dhanka hawada ah ayna ku soo rogtay magaalada Kismaayo iyadoo sheegtay in muddo 3 maalmood ah aysan wax diyaarad ah ka dii karin magaalada Kismaayo sababta ugu weyn ee dib u dhacaasi ku keentay xafladaasi caleemasaarka Axmed Madoobe ayaa lagu sheegay inay tahay xayradaha 3 maalin ee dowladda Soomaaliya saartay duulimaadka Kismaayo si wafuudda ka qayb galayso ay ugu adkaato inay tagaan magaalada Kismaayo kana dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sugan magaalada New York dalka Mareykanka ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta sanadlaha hogaaminta suuban ee Conte Katria madaxweyne Farmaajo ayaa waxa abaalmarintaasi la qaybsaday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea mudane Isaias Afwerki kaalintaas saddex-geesoodka hogaamiye ay ka qaateen nabadgelyada isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika abaalmarintani ayaa ahayd mid haabtan lagu dhiirigelinayo dadaaladii isdhexgalka ay ka shaqeeyeen saddexda madaxweyne ee kulamo dhowr ah inay yeesheen sidoo kalena heshiisyo kala duwan ay gaareen markaana magaalada Muqdisho
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Finish ayaa ka hadlay xiisadda cirka isku sii shareerisay ka dhax aloolsan madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo dowladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ambaariyay talaabadii dowladda Soomaaliya ugu horjoogsatay inuu u dhaafo magaalada Kismaayo ayaa xusay in hanaanka dowladda ay u dhaqmayso mid halis ingilin karo jiritaanka gudoomiye Cumar Finish oo qoraal soo dhigay baraha bulshada ayaa uga baaqay Sheekh Shariif in uu hoggaansamo awaamirta dowladda federaalka uuna ka fogaado wax kasta oo abuuri karo khilaaf cusub waxaana uu ka codsaday madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu u hoggaansamo awaamirta dowladda ka muwaadin ahaan misna uu ka fogaado wax kasta oo abuuri kara khilaaf siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedkaasi Jubbaland ayuu yiri Cumar Finish dhinaca kale duqa Muqdisho ayaa ugu baaqay madaxda dowladda inay wada hadal ku xaliyaan khilaafka jira waxaana uu sidoo kale ka codsaday madaxda qaranka ee qosayso arinkani inay wada hadallo iyo is-afgarad lagu dhameeyo khilaafka jira sida Jubbaland iyo tan shakhsiyeed si uusan waqtiga inoogu lumin isjijiid dhaxdeena ah ee misna ay haatan baxakad gelino u adeegada bulshada iyo qaranka ayuu intaasi ku daray hadalkiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa xusay in dalkeena waqtigan xaadirkan u baahan khilaaf uu u baahan yahay xal iyo wada tashi niyad ah taas buu yiri waajib saaran muwaadinka Soomaaliyeed markaana garoobe madaxweynaha maamul goboleedka Puntland mudane Saciid Abdullaahi Daani ayaa magacaabay agaasimaha cusub hay'adda nabad sugidda sirdoonka maamulkaasi kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa Daani ayaa xilkan u magacaabay Muqtaar Maxamed Xasan Jayte oo hore u ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulkaasi wareegtadani oo ku taariikhsneed 23kii bishii oo shari ku beegneed ayaa haatan lagu sheegay in madaxweynaha markii uu arkay aqoontiisa iyo khibradiisa shaqo uu Jayte u magacaabay xilkaasi sidoo kale saraakiisha hay'adda ammaanka ayaa la faray in haatan la shaqeeyaan taliyaha cusub ee nabad sugidda sirdoonka maamulkaasi markaan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka ugu yaraan 7 caruur ayaa ku geeriyootay 750 kale way ku dhaawacmeen kadib markii uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi dalkaasi Kenya dhismaha ayaa burburay wax yar kadib 7 subaxnimo markii caruurtaasi ay galeen fasalada telefishinka gudaha ayaa muujinayay muuqaalo shaqaalaha gurmadka degdega ah oo baarayo baraha shubka iyo dhagaxaantaasi burburka iskuulka Practice Talent isla markaana marooyin cad ku sida meedadka haatan laga soo qaaday baawurta gurmadka degdega ah waxaana jira 750 kala arday oo dawo loogu qaaday isbitaalka waxaana sidoo kale la xaqiijiyay dhimashada 7 qof waxaana sidaas yiri afayeenka dowladda Cyrus Ogana isbitaalka Kenyatta ayaa goor dambe bartiisa Twitterka ku sheegay in 64 arday la keenay isbitaalka oo dhaawac ah waxaana burburay dabaqa koowaad oo dhismaha iskuulkaasi taasi oo caruur badan ee ku go'daamisay hoostiisa waxaana sidaasi telefishinka NTV u sheegay xildhibaan degan oo lagu magacaabo John Kerry wali ma cadda waxa sababay in iskuulkaasi uu soo dumo hase yeeshee mas'uuliyiintaasi ayaa horey ugu digay in qiyaastii 30 ilaa 40 kun oo dhismo ah oo Nairobi lagu dhisay iyadoo aanan fasax ka haysan dowladda ay halis ugu jiraan inay burburaan waxaan noogu idlaaday wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka warwarka lamida intaan ku wada kulmi doon waxaan idinka ka tagnaa salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan hadii uu yahay markii kugu horeysay channelkayga soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto kamaleelkan afarto si aad u noqdo daawadii ugu horeeyay ee warkeeni soo gaaro mahadsan daawade